شروه انت إيا آلته ورسوهم لاغو أوروتيو أغادان 24 دادكو هذا أمان شروه انت إيا آلته ورسوهم لاغو أوروتيو أغادان 24 دادكو هذا أمان بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم دغيستيال meel kasto aad joogtaan iyo si kasto aad noo maqlaysaan kuna soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan ku wareysan doono abwaan kamid ah abwaanada Soomaaliyeed gaar ahaan ka soo jeeda deegaanka Soomaalida ogaadeenaya abwaankan ayaa ah abwaan Ikhyaar Xasan oo ah abwaan ku caan baxay ama hal abuur ku caan baxay dhinaca dhaantooyinka iyo waliba gabayada su'aalo kooban ayaan ku weydiin doonaa barnaamijkan abwaan ku soo dhawow marka hore ogaadeen 24 iyo barnaamijkani oo kugu marti qaaday wandhawaay waan mahadsantihiin abwaan marka anagu ku soo dhaweynayna barnaamijkan ayaynu bilaabaneynaa waxaan ka bilaabaynaa dhinaca dhaantooyinka iyo waliba noocyada u kala baxayeen iyo ciyaarihii kale ee Soomaalidu ay dhaqanka u lahayd su'aasha koowaad hadaan ku weydiiyo imisa nooc ayay u kala baxdaa dhaantada ciyaarta loo yaqaan dhaantada oo kamid ah ciyaaraha Soomaalida horta mahadsantihiin ciyaarta dhaantada la yiraahdo waa mawjad wax lagu qiyaasi karo ma aha wax lagu qiyaasi karayo yani ma aha sida dhaantooyinka kale ciyaaraha kale kalsaka kale Soomaalidu u leedahay sida zaydicida iyo jaandeerka guurowga iyo shirka ciyaaraha noocaas isma bedelaan laakiin ciyaarta gobolka ogaadeen laga ciyaaraa waxay kaga duwan tahay waa ciyaar magaca guud ee loo yaqaan waa dhaanto markii magaca guud dhaanto loo yaqaan haddana gobol la ciyaara ama degmo la ciyaara ama beel la ciyaara male hase ahaatee waa waxa adduunka isugu bedelka badan weeye ciyaarta dad ka maaraato 3 bilood marnaba macquul ma aha halkii aad ku taqiinay iyo qaybtii aad ka tumi jirtay inaad ugu timaado wax suurtagal ma aha ciyaaraha kale ee culture-ka Soomaalidu u leedahay taasi kaga duwan tahay waxa kale oo kaga duwan tahay ciyaaraha kale ee Soomaalidu tunto waxa arkaysaa shirku iyo guurowga iyo odayaal tumaya laakiin ciyaarta ogaadeenaya inta badan waxa tunta dhalinyaro haddii waliba uu ninku isagoo dhaantayahan ahaa oo dhaantada caan ku ahaa uu gabadh guursado waxa uu dhici karta in marka dhaantada ugu dambayso waxyaabaha kaga duwan tahay ciyaaraha kale ee Soomaalidu ciyaarto ayaa taas ah waxaad maqli kartaa ciyaaraha qayb kamida oo fadhi ku tun leeyahay dhaantada leeyahay qayb fadhi ku tuna oo dhaantada kamida hablaha oo leh ilaaha qaadiro adiga ugu leeyahay ninna qabo oo tu kala u qostoday qisada ku jirta qaraaraha يعني واحد كنت سنة يسمعش هس إنه نكو هدو قبل جورسدو أنت بدن أي كحران تحل يارا عن يارا يسوي معايا وحكى له مغلق التعاري وضدك واحد لا يابا نين أوريله وأروس تجي أروس كوامله وبدل يدان تلا لقطمه هرت تاسي كي دوران شرت أنت بدن وحد تونتا ضد اليارا لكن وحد شرت ضد كله أو يستقل لقيه بكرواي أو يسوي إن بدن تومي أو قبله بدني عنك أو حتى أبوانين عانها سنين كل واحد دولو يقينه وكلا وانكوها إن حتى مر قبله ودلاين دانتدي يسقي قبله ودلاين حتى قردوف ورحمة ودانتدي اللي بيحوا هذيك كل اليوم لقطي ما ذو قاعد الله فيها هذا لنا عاصي قاعدي مركي وجون كي دليردي دمر كي الرجل كده حيل يسويرا وانا إسرائيل وهذا الذي سكمده كوكو قبل كي يعرف هذا الجديد يسوي رئيسه أرضه مركي إل كلا يدقي أقول توديد أبا يضرب si ay uga hadho oo ay u sii soconineen maaragtay gabadh asweer ka ay u sii wadeen marka wax lagu qiyaasi kara male ciyaaraha ogaadeen laga tumo waa ciyaarta ugu faraha badan ama ugu tayada badan ee ogaadeen laga tumo waxa kale oo ay kaga duwan tahay ciyaaraha kale inta badan ciyaarta dhaantada la yiraahdo nin aan ku soo barbaarin baadiye oo waliba geel soo raacay inuu si sax u keeno wax dhici karta maaha waatahay iminka dhaantada waxay noqotay mid meelo badan laga tumo oo gobolada kala Soomaalida gaartay oo sidoo kale qurbaha laga tumo ama wadamada Afrika kamida wadamo badan Afrika kamida ay qurbo joogta jooga ay tahay dhaanta ay tumayaan dhalinyaradaas dhaantada tumayso waxa laga yaabaa in magaca dhaanto mooyaane
inta ay u kala baxdo cagta lagu soo galay qaabka loo tumo aysan u kala baxsanayn balse inuu magaci guud uu dhaanta yahay uun ay garanayaan iyo musiga rhythmka inay raacaan marka maxaad nooga sheegi kartaa noocyada ay u kala baxdo magacyadeeda oo kale horta dhaantada dadkii tumi jiray isagu waxa idinku dhaanto u taqaanin markay arkaan wayba yani wax kaleba yaaba usoo baxaba ciyaaraha hadda la tumaayo dhaanta ma aha laakiin waxay u ogyihiin codka ayay dhaanta u ogyihiin dhaantaduna ma aha mid laba midho oo gabadhii wiila istaba marsadaan ku eg dhaantadu 8 wareeg wax ka badan baa soo geli jirtay wax jiib la yidhaahdo oon cod lahayn oo gabdhaha cod keliya oo gabdhaha iyo wiilashu midna uuna isdhaqaajinaynin bay ku bilaaban yihiin oo laba saf loo kala taagan yahay ayay ku bilaaban jirtay oo salaamo iyo isbarasho leh oo aad u fara badan tan cagta ku bilaabanaysa istaaga iyo jiibta waa magaceeda iyada waa nooc adigu dhaantada kamid ah hadda magaceeda dhaanto waliba ogaadeen in laga tumo inta badan way leedahay laakiin marka ugu horeysa waan ku jecelahay cirkan ka soo dhacay aabaayeedan iyo sidan hadda wax loo leeyahay si moodida laga qaadi jiray banaadirga ma aynan ahaan jirin gabadha iyo wiilku xilliga isu garaabaan waxay ahaan jirtay xilli aad u fog oo gabadhaasi ugu dambeysay dhaantada laga yaabo sanada markay waliba socoto ayay ahaan jirtay waliba waxay ku bilaaban jirtay nooc qardoofa oo ay gabadhaasi hujuunto wiilka dadnimadu halka ay u joogto iyo ficilkiisa iyo tallaabooyinka uu qaadayo hal abuurka suugaantu halkay u joogto dulqaadka uu leeyahay yani waxyaaba fara badan ayaa dhici jiray waxyaabaha wiilka ee gabadhu markay isbaranayaan oo kale ama dhaanta ay isku baranayaan ereyada ay adeegsan jireen ama qardoofka maxaa kamid ahaa oo dee inta dambe waa isku soo dhaceen way heshiin doonaan dhaantada dhammaadkeeda balse bilowgeeda qaabkay isu baranayeen oo kale horta marka ugu horeysa horta inta ugu badan dhaantadu kolkay bulshadu isu timaado horta waxaad ogaataa dhaantadu beelo colloobay baa lagu nabdiyaa beela nabada baa lagu culeysiiyaa waxbaa lagu radiyaa waxbaa lagu kiciyaa wax kasta oo bani aadam uu ka hadlo ayaa lagaga hadlaa xataa waxaad arkaysaa dhaantooyinka marka la isugu yimaado inaad mararka qaarkood maado aad moodaysa diini oo wacdiya inay dhaantada dhexdeeda ay ka bilaabato waxay lahaan jirtay halku dhegyo murtiye aada u badan hadda nin dhaantolaha wuxuu yidhi salaadaan safiina loo barin inaan la saxaynin baa sala dhaantadiisa ku jirta waxay kutusaysaa dhaantadu inay ahayd mid wejiye badan leh oo wax kasta oo bulshadaas hortaagan lagaga hadlo hase ahaatee mayna ahaan jirin dhaanto ama ku daya oo hebel dhaanto niman abiyaa u widna dhaanto tuminon dhanay u socotaba garanaynin oo haddii su-aala laga weydiiyo wax saxaan ka keeni karin uu yidhahdo hebel dhaanto waxaa kaloon ahaan jirin mid xabashi iyo dad kale ay tumaan maynan ahaan jirin oo garanba karaan xataa reer magaalkay ku adkayd inay tumaan way u daawasho tegi jireen dadka reer magaalkii intay magaalada ka baxaan bay dadka baadiyaha ayay u daawasho tegi jireen laakiin waxay dadka magaaladu abuuri karaan maynan ahaan jirin sababtoo dadka reer magaalka ah waxaa lagaga qanisan yahay af soomaaliga iyo suugaanta labadaba waa lagaga qanisan yahay sababtoo ninka baadiyaha ku nool 10 kun oo geed buu magacyadooda yaqaanaa يعني wax kasta oo umada Soomaaliyeed ay magac u taqaanaa ama bani aadam magac u yaqaanaa waxa laga yaabaa qofka magaalada ku dhashay hadda 10 geed weydiiso magacyadooda inuunan garanin taas ay keenaysa inuu mar walba ka hal abuur badnaado waxa kale oo keenaysa hal abuurka hawsha uu ka hol badan yahay ninkaas waa cul joogeen oo colaaduhu waxay leeyihiin dhaantooyin gaar oo arlada ka badan oo la koobi karin mar walba waa nin qurba jooga oo maxaa ku dhadaa dibad jooga qurba joog yar roona qurba joog wax kala hada loo bixiyay waa duur joog dibad joog duur joog laakiin dadka adduunyada ugu qaalisanaha haddaba haddii aynu ku noqono dhaantada inta nooc ay u qaybsanto horta lama tirin karo intaan anigu wax ka waxyaabaha ka xasuusatid oo kale qaabkii ay ku soo gali jireen wiilka iyo gabadha oo kale markay dhaantada ay bulshada meel isugu imaato ee dhaantada aysan wali bilaaban oo kale ereyadii la adeegsan jiray maxaa kamid ahaa horta tusaale aynu soo qaadanay kolka ugu horeysa waxaa dhici karta dhaantadu xilliga diraacdiya dadka reer baadiyo hawl bay ku jiraan aada uma badna waxay aada u badan tahay dhowr mar bay aada u badan tahay xilliga colaadaha ay beeruhu degaan waa xilligay ugu badan tahay xilliga naqa waxa la yidhahdaa uu degay ee beeruhu ay isu yimaadiin aada bay iyadan u badan tahay xilliga gugii oo kale inta barwaaqadu dhacda beeruhu ay meera degaan ee dhalinyaradu ay kanshaha hayso way dhici jirtay hase ahaatee dhaantadu bilowgeeda ugu horeeya dhalinyarada nimanka geeljiraha la yidhahdo weliba siiba kolkii la qaybiyo reer baadiya waa nimanka ugu dhaantada badan iyaga noloshooda keli aba intay kasoo galaan nolosha dhan baa dhaantada ah waxaa dhici jirtay gabadhu marka ay dhaanka tahay ceelasha dhaadheer oo kale ay ka dhaamiso inta ay dhaanka tahay dhawaaq iyo hawl maalmeed hawl sugaan hawleed wax la yidhaahdo ayay ku jiraysaa
marka ay dhaanka tahay ay sii socotay dhabaha sii hayso iyadoo doonaysa inuu dhawaaqaas iyo codkeeda ninka geeljiraha ama dhaantayahankii inuu maqlo oo meesha erey la isku dhaafsado oo la isku barto si uu wanaag halkaa uga kordho yaa waxaad maqlaysaa kolkay tusaale ahaan sulul oo kale waa ceelasha u aroorka dhaadheer bay ku jirtaa ogaadeenaya iyadoo awrtii dhaankaay wada kaanu joogo warjabaaye sululiga jeeye iyadoo labaad maqlaysaa adigoo geela la jooga taasi waxay kutusaysaa inay wiilkaa geela la jooga ay maqashiiso wuxuu ka yidhaahdo ha iyo jawaabta uu siiyo waxaad arkaysaa iyadoo awrtii dhaankahayd wado allama weysaysta wiilayma cabe wadaada waa libaanu soo maray iyadoo leh waa tuma taasi cod iyo cad midna waa cod keliya sacab iyo laakiin cad midna uma baahna xataa dhaantada marka la tumayo midhaha qaybna cag bay qaadataa iyo sacab qaybna waxay qaadataa cag keliya qaybna waxay qaadataa guux iyo cag qaybna hal abo leen midho la istaba marsada keliya ayay qaadataa dhaantadu inta wareegay soo martay inta marxaladood ay soo marto lama tirin karo gabadhii marka ay dhaanka waddo ay leedahay ma weysata wiilihii ma cabee waddada waa libaanu soo maray isagoo kaynta geela la jooga gabadhii dhawaaqeeda maqlayo isna hadalkeedii buu sii raacayaayo dhalaan nin dhalaa u dhaansadee maxaa kugu dhaaday dhiraha halkaasi ka bilaabaya iyadiina waxay leedahay dhalaan nin dhalaa u dhaymaale maxaa dhaanka kugu wata iyadiina waxay leedahay war dhalaan nin dhalaa u dhaymaale maxaa kugu dhaaday dhila dhilkii waxduu dhoobigeelja kaa dhigay halkaasi ka bilaabanaysa halkaas kolkuu ka bilowdo gabadhii wiilka halkaa isku arkaan dadku macrifadoodu waxay ahayd halka hadda telefoon lambar la kala qaadanayo in beela la isku macrifeeyo beesheeda haydeen iyo beeshii reer hebel markaas wax barasho oo u dhiman ma jirto inankii wuu furayaa bankii buu tegayaa dhulkii duurka ahaa ee kaynta ahaa uu geelu jilaalka joogi jiray ayuu tegayaa gubii markuu roobku dee todob hawlaha waxa la yidhahdaa uu curto beeshii way guuraysaa wax maymaybax la yidhahda ay raadsataa beeshu maymaybax waxa weyaan xooluhu markuu gugii ay jilaalka abaar kusoo jirtay ee roobka jirkii helo haddii ayna meel tigaad la joogin roobkaaba laayaba beeluhu marka way guurayaan waxa odhanaya meelay xooluhu ka maymaybaxaan aan tagno wiilkiiba marka halkii uu joogay tigaadda lahayd ayay beelihii marayaan halkaa markay yimaadiin inankii oo geeli halkii la joogo oo kaliishii ay tahay oo wax nimco oo geednimadi ugu laabanaysan jirin iyo beelihii soo degayaan iyagoo konton reer 100 reer hadday doonaan u geediyaa isagii oo aan goobitaankiiba ku jirin oo beelihii meesha soo degeen baan ogeyn ayay beeshii oo geedifiidkii markay soo dhex degto reeraha waa tusaalaan kuu soo qaadanaya hablihii gabdhaha ahaba waxay ogyihiin inay geeljirii soo dhex galeen iyo fiidka odhanaysaa heblaayo inakeenan ahurtii doonne koox koox bay isu soo raacayaan markay kaninka ka soo baxaanba inay dhawaaqaan wax ceeb habluhu kuma dhawaaq bay bilaabayaan si nimanka geeljiraha ay u maqlaan dadka deeyaanyada iyo shaaha cabay ma ahayne gabadha markay dhawaaqdo codkeeda dhul intuu roob helay aadamna in codkeeda 50 kilomitr baad ka maqlaysaa halkaasay ka dhawaaqaysaa gabadhii dhawaaqeeda waxay leedahay geeljirow geelinaad ma soo galay bay leedahay gabadhi waa si nimanka geeljira ay ogaadaan inay maxaan ku dhahdaa ay hablo inay dhulka ku jiraan ay ogaadeen wiilkii geela la joogay markuu inanta dhawaaqeedii maqla xataa ooda iskama qabanaya barta ooda ku quman buu ka jiidhaya si ayna inantaas reerkii ugu laabanin oo ina mar dambe hadday reerkii ugu laabato uga faa'iidaysta gabadhaas yuu isna sii dhawaaqaya ilaa inaad tiri geeli nabad ma soo galay teedii buu raacaya dhawaaqeedii oo wuxuu leeyahay gobaadiyo goolashay waadatiyo nahadaad gurmangoosan baa lumaye ayuu sii leeyahay wuuna ordayaa weliba kolku saa u dhawaaqay halkaa marka la isugu yimaado ayay ciyaartii bilaabanaysaa ciyaartu waxay ku bilaabanaysaa salaamo iyo isbarasho isbarashada kadib waxay u gudbaysaa haddana ammaantaa markay u gudubtaa waxaa laga yaabaa intuu wiilkaasi caawa ku jira gabayga inuu waagu ka bariyo 5 habeen kadib ama 6 habeen kadib ama 7 habeen kadib ayaa laga yaabaa dhaantada caadigi inay bilaabato gabdhaha iyo wiilashuna sidan hadda lalabada ahee maaragtay dhalinyarada dambe hadda ay tumaanee gabadhiina halkaasay taagan tahay waa 4 gabdhood keliya midba meel bay taagan tahay waxaad moodaa jigjigoo keliya markaad daawato waxaa la yidhahdaa ciyaar waxay jirtaa oramadu ay tunto shagooyaa la yidhahdaa tiraas dheer kuma tumaan 4 gabdhood iyo 4 wiil 10 gabdhood iyo 10 wiil xabad bay isugu aadayaan laakiin ciyaarta ogaadeen waxaa dhici jirtay 10 gabdhood iyo 50 wiil
inay tumayaan konton gabdhood iyo 500 oo wiil inay tumayaan konton ka gabdhood haddii 500 oo wiil gabdhood yihiin labada gabdhood dhexdooda marnaba inaad marto ma suurtagelayso حتى هذيك الشيء كان شغل ما يسكت كنت كاجا بروبا كربصارة يسكت بنايا si aan dhexdooda loo لا ما مري كربا ونقول لك ما قريب عرف ما تكلم وريق هذا حاجة هوري بهؤلاء أنا ما صعب يصير صور شريان لكن هذا عياره إذا دانتدي وحكر على قدي ولا سياسي وحزبية لو تغيير النقطي وحمد ضيق بدل حبارسن بين النقطي dadki yiqiin waxayna soo gali kareen oo ka caadiin bay noqotay dad tira yar oo mushahar lagu siiyo oo wax ahayd iyo meesha ka timid hadii faalay leeyahay aan garan karin ay tumayaan bay noqotay waxay noqotay waliba culture kale oo umada kale lahayn lagu dabaqayo hada ciyaaraha laga tumo gobolkeennii oo kale waxa la doonayaa in la isku daro waxa lagu oranayaa maxaan ku dhahdaa kulanka maxay dhaqamada kala duwan ee qoomiyadaha waa lagu leeyahay waa in la isku daro oromadii waxaad arkaysaa hadda dhaantadii inay wax ka taqaano moodayso habeen dhawaad baan fiirsanay TV-ga oromada iyagoo la dhaantaan tumaynaa ma ahan jirin marka dhaantadu kolkay dhaantada saxda ah wax dadka u dhashay mooyay dad kale uu keeni karo ma aha waa tahay abwaan inagoo aan barnaamijkan kusoo koobi karin noocyada dhaantada iyo weliba qaababkii loo tumi jiray iyo sidii ay dhalinyarada u kulmi jireen inagoo aan kusoo koobi karin su-aasha xigto aan ku weydiinayo waxay tahay gobolka ugu badan gobolo badan ayaa laga tumaa dhaantada laakiin dadka ugu badan ama gobolka caanka ku ahaan jiray in dhaantada laga tumo ee kamid a gobolada reer Ogaadeniya waa gobolkee horta gobolada Ogaadeniya in badan baa laga tumaa gobolada aad u badan baa dhaantada qani ku oo si xoogan looga tumaa laakiin dhaantadu gobolka hadda qorraxay la yiraahdo iyo gobolka Jarar la yiraahdo iyo gobolka Nogob la yiraahdo iyo dadkooda bulshadoodu waxa suurtagal ah inay ku raadinayaan maadigo dhaanta tumin baad seexan kartaa sax kor baa u tirbeeri maadigo ilaahay ku abuuray dhaanta tumin baad seexan kartaa bay u tiri waxaan maleynayaa gabadhaas si dhaantadu tumin jirtay hadda saa u soo gootay waan maleynayaa inuu gudriyo yeelata waan dareemay dhaanta badna waxa ka qabto gobolada Ogaadeniya dhaantada waa lagu kala badan yahay oo hadda gobolka Shineele la yiraahdo oo kale ما بدنا دانت لقى تما بي وقتها حلو يقولوا إن زين اللي قال تما صح قبل كتير اللي هذا وكليه ودانت السوق صح وحي السوقان بيلها بريء كذا سوق جوري إنما كجيل ترى اللي هذا كلام تصور وقت جاي سوق جوري إنت هاي مريان صح ولا ده كلام دونة كي جيل تري دانت ضاي تمان ما كي كلا بتان إلى كلام هذا النقطة تي جيل تري هو كجت تجي أيه لو يمشي ولا ده جيل تري ما كي تما ضاي هذا توكل الصوم وطان أيه ولا يمشي تيور مركز على تور جري ولا يقول بجري حسأت واحد من أصل يفرع يقول أنتظر وقاعدين يلا قطمو أصليا قبل كهدي اللي هذا حاجة أصل كده يوريه كتم اللورن كرو وقبل كشميرة اللي هذا شبيل شميرة يعني نورن واحد كلو كده دوية قبل ده وقاعدين أنت بدل قبل ده وقاعدين أنتظر هبين كي ولا قطمه بروح ما يروح يقول هلا أنا قدرين باقي قاعد وضيع شرير وقاعدين يكون ماما سهبين كي ما بلا قطمه لكن قبل كشبيل اللي هذا قيمة كمية دانتنا مارنتي بالله تمام وحنا كنت جيل على برقية هذا قيمة نقطة سوكري ميلو دوشة ولا جيل ولا برقية مركز على برقية دانتها لوسي سويا ولا دول بيلها كاركود خبسن دانتك ولا بحين واحد مرة يسافر برقين كيو كله خبسن هي رجعنا ويا عرفات كايو ولا أيام مرة يسافر صح مركز دانتها مركز قبل كوجو بدنا أما كوعام بحاول ماشي أي كاتمد واشبيله شروه انت إيا آلته ورسوهم لاغو أوروتيو أغادان 24 دادكو هذا أمان شروه انت إيا آلته ورسوهم لاغو أوروتيو أغادان 24 دادكو هذا أمان intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii aan kaga hadlaynay suugaanta Soomaalida khaasatan barnaamijkan wuxuu si gaar ah u taabanaya dhinaca dhaantooyinka ama ciyaar dhaqameedka laga tumo gobolka Ogaadeniya barnaamijkan ayaa waxa marti noogu ahaa abwaan Khiyaar Xasan waxaad si toos uga dhageysanaysaan Ogaaden 24 inta barnaamijka la mid ku kulmi doono dhamaantaya nabadgelyo إيا آلته ورسوهم لاغو أوروتيو أغادان 24 دادكو هذا أمان
24 إذ لي ويقرها أمتي أوضن تيقود كلاغو الحامي كوبتين توديبا وغدن 24 لغا ودا أخي أغن كني دلكي أرلا سوماليا صوروه ريو وغدن 24 إذ لي ويقرها أمتي أوضن تيقود كلاغو الحامي كوبتين توديبا وغدن 24 لغا ودا أخي شروه انت إيا آلديه ورسوغن لاغو أوروتيو وغدن 24 دادكو هذا أمان ونها بيو أبشري لادهو وغدن 24 وعندي دكا إنك أنا همضيني شروه انت إيا آلديه ورسوغن لاغو أوروتيو وغدن 24 دادكو هذا أمان ونها بيو أبشري لادهو وغدن 24 وعندي دكا إنك أنا همضيني وغدن 24 دادكو هذا أمان وعندي دكا إنك أنا همضيني وغدن 24 دادكو هذا أمان وعندي دكا إنك أنا همضيني وغدن 24 دادكو هذا أمان وعندي